maalin wanaagsan meel walba joogtaan dunida ku joogtaan waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan doonaa maanta inaan la wadaago digital currency-ga ama bitcoin kaasoo aan ugu talagalay dadka bilowga ah inay ka faa'iidaystaan bitcoin for the beginners explanation part 1 qaybta koowaad aan doonaya inaan la share garayo intaada la wadaagin kahor hadda informationkeeda la wadaago backgroundkayga anigu waa maax kaasoo digital currency-ga wax ka yaqaana sidoo kale online-kana ka sameeya lacag kaasoo doonaya inay dadka ka faa'iidaystaan bitcoin doonaya inay ka faa'iidaystaan macluumaad badan doonaya inay ka ogaadaan waxaan doonaya inaan la wadaago intaan u gudbin ka hor bitcoin waxaan sila ogaa doonaa what is a digital currency digital currency maxaan leenahay digital currency qaabka ugu fudud aad fahmi karto waxaan leenahay waa digital money waa lacag kaasoo electronic ah loo isticmaalo sidoo kale lacagtan waxa waaye meel walba aad dunida joogto ayaa loo isticmaalaa digital currency-ga tusaale Soomaaliya oo kale ama moqadisha oo kale waxaa laga isticmaalaa EBC oo kale waa digital currency-ga sidoo kale waxa waaye transfer in millisecond waa lagu diri karaa meel walba dunida joogto sidoo kalena qiimee leedahay waxaa kaloo dhigi karaa qaab kaloo digital currency lagu fahmi karo waxaa leenahay waa electronic money lacag electronic ah loo isticmaalo waaye sidoo kale marka lacagaha digital currency-ga marka loo eego kale bitcoin oo kale waxay kooban tahay digital currency maadaama ay kamid tahay competitive line cryptocurrency code sidoo kale mandatory value qiimo leh marka digital currency isla bahanay aan dhahnay meel walba dunida joogta loo isticmaali karaa lacagta digital currency waxaa ugu caansan bitcoin marka bitcoin waxa waaye wax badan ayuu faa'iido leeyahay intaan u gudbin faa'iidooyinkiisa iyo detailskiisa waxaan rabaa inaan sida ogaano maxaa la bitcoin waxaan leenahay is a form of digital currency qaab lacageed oo electronic ah waaye taasoo la abuuray sidoo kale 2008 sidoo kalena waxa waaye waa developmentigiisa iyo hordhaciisa 2009 uu ahaa xilligii uu bilowday bitcoin 2009 intaan u gudbin ka hor historigiisa dheerka ah waxaa leenahay bitcoin maxaa la decentralized digital currency waa lacag qaab digital loo isticmaalo waaye kaasoo in awood ayna u lahayn inay xukumaan dowladaha iyo organizationada waxaan kaloo dhigi karnaa bitcoin is a virtual cash or gold wasiitaanka oo kale ama lacagta oo kale waaye sidoo kale waxaa kaloo la isku diri karaa person to person shakhs to shakhs aniga iyo adiga waa isku diri karnaa bitcoin anigoo aadin bangi waxa waaye waa faa'iidooyinka bitcoin kala leedahay bitcoin kale ma daabici karo sida dollarka oo kale looma daabici karo waxaa u baahan tahay bitcoin in la daawaco deris waxay u baahan tahay waxa la dhahaa mining waxa waaye super computers loo baahan yahay kaasoo marka awood u leh inuu xaliyo mathematical problem markaas ayaa bitcoin la soo saari karaa waxaa kaloo dhigi karnaa bitcoin-ka oo open source waa mar walba furan yahay qof walba ka faa'iidaysan kartaa haddii super computers ay haysato scale resources ay haysato laga gudubno what makes different from normal currency lacagaha kale maxay bitcoin ugu duwan tahay bitcoin lacagaha kale waxay ugu duwan tahay waxa waaye lacagtan waa lacag electronic ah online-ka loo isticmaali karaa waa internet money electronic money waaye sidoo kale sida dollarka oo kale ama euro oo kale ama yen oo kale lama taaban karo laakiin waxay waaye waa digital sidoo kale waxa waaye organization xukumi karto dowladda xukumi karto lacagtan sababta loo dhahay waxay tahay lacagtan large companies cannot control their money sababta loo dhahay waa bangiyada waaweyn lacagaha ayaga naftooda control karaan sababta ay control karaan waxay tahay waxay ku doonayaan dowladda inay lacagta daawacdo marka laga yaabo dadka ay dowladda xukunto inay yaryihiin lacagtiisa daawiciisa ay badan tahay markaana cagsigeeda dhici karta dadka inay yaryihiin lacagtiisa daawacay aad u badan tahay marka waxaa dhaca waxa la socdo inflation bitcoin waxyaabaha lacagahaas kala duwanta waxa waaye marka la soo daawacayo waxa waaye waa in la helaa dadkaas waxaan u ah demand supply okay who creates it bitcoin waxaa abuuray software developers kuwaasoo loo yaqaano citation commuter developers ah oo la baxay magaca citation commuter so 9key
lacagtan waa lacag waxaan ugu talagaleen markay kiribgareeyeen inay abuurayeen inay ka mid noqoto electronic payment system lacagaha nidaamaadka caalamka oo dhan loo isticmaalo as a payment nidaam xamuud bixi ay tahay electronic ah laakiin ku tiirsan dhismaadka improvement qaab xisaabeed ku tiirsan waaye dhismaadka improvement ku tiirsan aydigaasna waxaa soo saaray inay laga xuruubo lacagaha markaasi ay awoodaha badan ay leeyihiin dowladaha iyo organisationada iyo dadka lamid ah taasoo keenaysa marka inay mar walba lacagta lacagaha kale ugu duwan tahay ay tahay low transaction fee lacagaha qaadi doona transaction ku dhacayo lowga aad ay u yaryahay transactionka marka bitcoin la joogo la qaada laakiin bangiyada kale marka la joogo lacagaha transactionka ay saaraan waa xoogaa high waaye marka bitcoin low transaction fee okay who's printed india daawaca lacagta bitcoin no cidna ma daawici karto sababta waxay tahay physical la'aan lama arki karo sidoo kale bangiyadana awoodi maayo inay daawacaan instead laakiin bitcoin haddii rabto inaad daawacdo create a digital hard digital aan u samaysan tahay sidoo kale daawacadeedana waxaa iska reebaya community bulshada iska leh people kuwaasoo marka kusoo jaangoreynayaan bulshada bitcoin markay bitcoin kusoo jaangoreeyaan ay kusoo biiraan waxaa loo samayn doonaa mining maxaa waa micnaheeda using computer power system aan isticmaali doonaa computer aad u weyn oo distributed network qaybinaya waa distributed network ah taasna markaas kadib ayaa bitcoin lasoo saari karaa ama la daawici karaa bitcoin marxalado badan ay soo martay marxaladahan ay soo martay hadda isla fiirina bitcoin 2009kii ay soo baxday station commuter groupkaas la baxay markuu la baxay maxay dhaheen lacag waxaan soo saarnay digital ah oo online loo isticmaalo maanta qiimo ma lahan soo invest gareysta on yar kadib faa'iido helaysid qaar badan ayaa invest gareysay qaar badan waxay dhaheen dadkan waa dugtuuga ah waaye doonaya in online ku dhacaan is scam oo kale ma ahan legit ma ahan marka qiimaha markaas ku bilaabanaysa 0.001 waxay sidii aan dhammayn ay ahayd 2009 after 1 year May marka la tagay $1 ay noqotay bitcoin marka loo eego lacagaha dollarka iyo marka loo fiiriyo kala dollarka $1 ay noqotay May 2010kii hadda intaas tusaale oo kale 0.1 oo kale hadda $100 oo kale invest gareysan lahayd 2009kii $100 inta ah haysato bitcoin waxaa ku dhufsan lahayd May $1 aad ku dhufsan marka ah haysato oo bitcoin ah February waxay noqotay bitcoin $72 ay noqotay July $100 June 18 waxay noqotay $350 November waxay noqotay 1000 sidoo kale November 2013 waxa waaye 1000 ay noqotay December 2017 10,000 ay noqotay around 0 ka maqan okay November waxay noqotay bitcoin 2017 hadda waxaa kala jooga bitcoin qiimihiisa ama value-giisa waxa waaye 16,000 hadda dib ugu noqdo isla hadda aan fiirino waa bitcoin 16,000 marka xilligaas hadda aan invest gareysan lahayd maanta waxa waaye wax badan ayaad ka macaashi lahayd bitcoin marka just like waa invest gareysan kartaa wax badan aad bitcoin ugu samaysan midna waxa waaye bitcoin maxay ku tiirsan tahay sababta keentay inay qiimo yeelato maxay tahay sababta ku tiirsan tahay waa mathematical formula waxaa la isticmaalaa xisaabeed taasoo marka available ku ah marka anyone can check it kaasoo iska jeegaray kara waaye micnaheedana waxaa loola jeedaa waxaa fiiri kartaa sourcigeeda iyo codekeeda fiiri kartaa iyo network distributorkeeda bitcoin waxay leedahay protocols ay leedahay iyo ruulo sharciyo iyo protocolyo nidaamyo leedahay taasoo marka bitcoin inuu shaqeeyo keena tusaale marka waxaa kamid ah protocolskeeda waxaa kamid ah ruleskeeda 1 million bitcoin marka la abuuro ayaa mining kugu dhaca taasoo markaasaa bitcoin la xiri karaa okay supply and demand sidoo kale bitcoin ku xiran tahay kulama ay dadka baahida u qabo kale ay soo dalbadaan oo kulama bitcoin qiimihiisu sare kacayo sababtaas keenaysa marka maanta bitcoin 16,000 umaraad waa si dahabka kale waaye dadku waxay fahmeen faa'iidada leedahay qiimaha uu leeyahay bitcoin
marka dad badan in hadda stiil way haystaan sababtu waxay tahay bitcoin waxaa la aaminsan yahay inuu noqon doono 1 milyan 2018 wuxuu noqon doonaa bitcoin around 10,000 around 20,000 $20,000. Okay, remember waxaa xasuusnaata marka blowda logarithmska marka doonaa bitcoin la soo saaro kale 2 milyan second kadib waxaa la soo saari karaa 1 bitcoin. Okay, supply demand ku xiran tahay astaamaha bitcoin ay leedahay waxaa kamid ah characteristics waxaa kamid ah decentralized waaye lacag markaas in dowladda xukumi karin organization ay xukumi karin waaye sidoo kale waxaa kaloo kamid ah sifooyinka ay leedahay bitcoin waxaa kamid ah it's easy to set up aad u fududaa qofku inuu isticmaalo sidoo kalena waxa waaye bitcoin markaa u baahan tahay inaad isticmaasho second ahaan aad ku isticmaali kartaa adoona su-aalo isweydiinin sidoo kale waxa waaye as a payment in la isticmaalo aadayna u fududaa bitcoin inaad isticmaasho sidoo kale waxaa kaloo kamid ah bitcoin isata anonymous caan waaye waxaa halkaa kula hadlaa bitcoin caan waaye artisanayga marka la eego bitcoin waxay dhahayeen scam waaye ma ahan lacag oo jirto ma ahan laakiin reality marka hadlayna bitcoin anonymous waa mar walba duniyada laga joogo laga isticmaalaa even somali xataa laga isticmaalaa bitcoin waxaa kaloo dhihi karnaa bitcoin is a fast you can send anywhere like sending email meel walba duniyada joogto bitcoin waa isku diri kartaa meel walba u diri kartaa sida emailka oo kale waaye okay waxyaabaha kale sifooyinkeeda leedahay waxaa kamid ah meel walba duniyada joogto kale ama aad u kaxayso kale inaad aado kale bitcoin waad ka helaysaa waana isticmaali kartaa dalxada hadda waxaa meel walba duniyada aad joogto ATM leeyihiin ATM-yadaas sida mashiinadaas aad bitcoin kula bixi kartaa inta markaas aad doonayso kale waxaa kaloo dhihi karnaa bitcoin waxaa waaye is complete transparent waaye sababta transaction fee-ga laga qaadayana aad u yaryahay tusaale bangiyada caadiga ah markay doonayaan in lacag meel laga diro meel kale loo diro $10 la iska qaado tusaale qof UK joogo America joogo muqdisho doonaya lacag soo diro waa in $10 dheeraad uu bixiyaa sababtu waxay tahay waa transaction markaas la qabanayo bitcoin marka inta laga qaadi lahaa $10 doesn't transfer lacagtaas lagama qaadayo oo ah $10 instead booska waxaa laga qaadi doonaa sentiyaal laga qaadi doonaa waa isla arki doona gadaal ah waxaa kaloo kamid ah reputation manaha soo noqotaan manaha bitcoin sidoo kale waa complete transparent waxaa kaloo kamid ah marka bitcoin markaa doonaysa inaad isticmaasho isku dira diis waxay isticmaali doontaa blockchain ay isticmaali doontaa that is all kaasoo marka dhammaan sheegi doona transactionadii wixii baa dhan blockchain ku sheegi doona tasniin waxaa markaa doonaysa bitcoin inaad isticmaasho booska bangiyada la isticmaali lahaa inay lacagaha la isku diro kale waxaa la isticmaalaa blockchain la isticmaali doonaa open source ah sigara sidoo kale like account oo part 2 aan ku qaadan doono okay haddii marka aad u baahan tahay oo kale inaad bitcoin isticmaasho dunida waxaa u baahan tahay policy oo loo isticmaalo bitcoin dunida waxaa waa address aad u baahan tahay markaad doonaysa bitcoin inaad hesho haddii in lagu soo diro ama aad doonaysa inaad dirto address aad u baahan tahay anyone can u diri kartaa adoonba u diri kartaa hadana bitcoin you send ama store inta aad rabto inaad u dirto ama inta aad u kaysato addresskaas aad ku sheegi doona okay waxaa kaloo kamid ah marka bitcoin faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah oo characteristics ama sifooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah blockchain la isticmaali doona okay marka dadka wax ka dhaxaya rabaa inaan sal aragno oo kuwata wax ka dhaxaya wax ka qoray oo bitcoin kala joogo dadka caalamka ugu haasan bitcoin marka la isticmaalo tusaale bangiyada kale waxaa qofka inuu qofka lacag ku jiro waxaa laga qaadi doonaa $10 oo dheeraad oo bixina qofka UK joogo soo muqdisho lacag ku soo diro $10 waxaa qaadanaya bangiga qaadanaya sababtu waxay tahay bangiyada ayaga formkaas ay exchange u sameeyaan marka bitcoin marka la joogaan ama cryptocurrency marka la joogaan remove the middleman waa qofka dhexe ay khadka ka saaraysaa instead marka lacagtaas ay ka qaadi doonaan waxaa laga qaadi doonaa $30 meesha bangiga qaadi lahaa kala joogo kala bitcoin waxaa laga qaadi doonaa sentiyaal 0.001 isna qofku ma dareemayo sababtaas markay dadka bitcoin aad u jeclaadaan soo kale awoodda ama authority bangiga leeyahay meesha daaqada ka baxda meesha adigu bangi isticmaali lahayn
bangi isticmaalaya qofkaas lacag ku diraysaa through ada mobilka laga isticmaalayo ama computerka laga isticmaalayo internet access aan markaas heli karto. Okay, kuwaas waxyaabaha laga qoray bitcoin dadka oraahda ka dhaca kamid co-founder of PayPal waxaana qanaabnana PayPal qofkaan aqoonin look it waa fiiri kartaa PayPal ninkiis kale wuxuu dhahay unlike PayPal messenger PayPal bitcoin success store bitcoin guuleysatay development currency lacagtiisa inay hooseyso waxaa kaloo kamid ah ninkan waxaa loo yaqaana co-founder of Virgin Group waaye dadkii UK jooga aad u yaqaaneen waa sida network marketing I have invested to cryptocurrency because maxaa yeelay sababta ama xitaa waxaa aaminsanahay awoodda ay leedahay sidoo kalena caalamkan kala joogna transfer global payment is a bit excited aad aan jeclaaday waarija. Okay, ninkan waa ninka aad u taqaaniin waa co-founder of Microsoft Bill Gates qof walba yaqaano oo teknolojiyada ama dhinaca ka yaqaano waa nin anonymous ah waaye waxyaabaha uu ka dhaxay marka bitcoin aragayna si ogaana individual mustaqbalka financial transaction waxaa isku jirta individual labaantii digital noqon doonaan universal caan waaye almost free waxa waaye free xaqiiqadii marka warku uu dhahay tusantaankii ama sanaankii waxa waaye reality ma ahayn oo dhan ma ahayn laakiin maanta waqti xadirka waa warku uu dhahay true waa wrong maanta bitcoin waxa waaye waxay ka mid tahay lacagaha as a payment laisku diro waaye sidoo kale waxa waaye transaction kaniiskan waxa eventually digital waaye universal waaye almost free waaye caan waaye bitcoin maanta kala eego waxyaabaha ay ka dhexeyn bitcoin sidoo kale waxa waaye qorahadooda ama waxay ka dhexeyn maanta xaqiiqada noqoto adiga marka video daawanaya waad wax ka dhex about bitcoin wax ka dhex adigoo markaasi commentigaagan hoos nagu soo qori doona sidoo kale videoan share garee ama like dheh partiga joogo nala soco insha allah meel baad joogtaan waxaan leeyahay waana wanaagsan waxaana iloobay inaad youtube-ka aan ku leeyahay inaad subscribe aad dhahdo ama like ama thumbs sina share garee commentigana hoos ugu qor bye bye